waa qiso aad iyo aad u xanuun badan runtii aad iyo aadna ii taabatay cawaankeeduna wuxuu yahay dadkii doonta saarnaa kaliga ayaa ka haray saaxiibayaal halkani waa qiso iyo qalin muuqaalka la garaya channelkan subscribe noo dhaha maalmahan meel fiican baad noo wadaane sidaa wada aan sheekadana gudagalno waxaan ahaa ardaydii dhammaysay dugsiga sare 2021gii waxa ay galay buufis inaba aan caadi ahayn habeen kasta waxaan sawiran jiray riyo mala awaal ah waxa intaas ii sii dheereed waxaa jiray wiil aan saaxiibo ahayn oo isku cudur aan nahay cudurkaasoo ah buufis ama dhoof waxa dhacday maalin maalmaha ku jirta duhur iyadoo ay tahay inuu saaxiibkay ii yimid iina sheegay inuu helay kuwa tahriibayaal ah oo si qarsoodi ah dadka ku tahriibiya asaguna uu rabo inuu dadkaas raaco waxaan idhi walee kaama haro inamari saaxiib marka isla waqtigaas lama baxayn bisha dhex ayay maraysay bilowga bisha kale ayaa la bixi rabay marka yarkii muqalladkii ayuu ii geeyey waan wada hadalnay wuxuu yidhi baasaboor ayaan kuu samaynayaa lacag keenso dhaqaal ahaan reerkeennu normaal ayay ahaayeen nolosha dhexe ayaan ku jirnay waxaan dhowr jeer qolka hooyo ku arkay sanduuq yar oo dahab ay ku aruursato hooyaday kii ayaan halkatiin iyo faraanti ka soo xaday kadibna inta iibshay ayaa ninkii u geeyey lacagtii baasaboorkii ayaa la ii sameeyey lacag yarna way ii soo hadhay wakhtiga la bixi lahaa ayaa la gaaray si dhuumasho ah ayaan ku baxnay aniga iyo saaxiibkay iyo anigu gurigeennu wuxuu ahaa kuwo isku soo horjeeda war yaanan inku daaline ugu dambayn waxaan tagnay liibiya halkaas ayaan reerkii kala soo hadlay qaracan iyo qaadawaa kadib lacagtii waa layga dhiibay oo xerada magafaha ilaahay uguma dhibin 3 isbuuc ayaan ku jiray muddo 3 bilood ah ayaan meesha joogay doon baxaysa ayaan helay markii dambe aniga iyo saaxiibkay waxaan ku kala harnay xeradii kadib dhalinyaro kale ayaan meesha ka bartay iyo kuwo aan iskala nimid waddankii marka doontii ayaan habeenimo raacnay waxaa dhacday doonta markay socotay ugu yaraan 2 saacadood iyo bar ayaa waxaa yimid roob mihigaan ah oo meel uu ka yimid aanan garanayn waxaase intaas dheeraa hirka badda oo aad iyo aad u kacay iyadana run ahaantii habeenkaas waxay ahayd habeen madow oo aan marnaba qalbigayga ka go'in waxaa dhacday xaaladdii annagoo ku jirna oo dhinacna hirku naga garaacayo dhinacna roobka ayay hal mar qallimatay doontii waxaan mooday dhammaadka noloshayda kulligeen badda ayaan ku daadannay midba midka uu ka xoog weynaa ayuu biyaha quusiyey runtii anigu waan biyo cabay waxaan isku dayey doontii gadoontay inaan qabsado markaan saa u qabsan rabo ayaa nin naftu haysay oo sii quusayey lugta igu dhegay waan isla quusnay ninkii ayaan laad iyo fayr iskaga fujiyey sababtoo ah nin walba nafta ayaa haysa waxaan aaminay dhammaadka noloshayda inay tahay waan ashahaatay waxaan soo xasuustay ducadii nabi yuunis ee ahayd laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min adaalimiin ducadii ayaan ku celceliyey sababtoo ah roobka hirka dabaysha waxaan mooday inuu yahay halaaggeenna laakiin maan ogayn markaas talyaaniga ayaan u dhoweyn oo doontii badbaadada ayaa in yar inoo jirtay inta uusan miirka iga tegin hal mar ayaan waayey shanqadhii dadka oo waxaan u qaatay inay dabaasheen oo iiga tageen meesha mugdi saa'id ah ayay ahayd kadib waan suuxay waxaan soo naaxay anigoo isbitaal jiifa waxaa lii sheegay dadkii dhan kaligay inaan ka soo haray dhammaantood ay dhinteen koomo kale ayaan galay mar labaad isbuuc kadib ayaan soo naaxay hooyaday ayaan wacay waxaan u sheegay inaan nabad tegey reerkayga geeri ayay igu xisaabinayeen marka la yidhi doontii cidna kama badbaadin hooyaday markaan wacay aad ayay ugu faraxday wax kasta waan u sheegay waxay tidhi habeenkaas doonta marka aad raacaysay ma seexan habeenkii dhan waan kuu ducaynayay ilaahay ayaana ammaano kaaga dhigay inuu ii kaa xafido waan ooyey runtii waxaan la ooyey ducada hooyo sida cajiibka ay u tahay hadda Germany ayaan joogaa alxamdulillaah sharci waan qaatay noloshayda way ii degan tahay hooyaday markaan soo kaco iyo markaan seexanayo waa la hadlaa shaqo ayaan helay waan shaqeeyaa hadda hooyaday waan u guday katiinkeedii iyo faraantigeedii waxaan leeyahay dhallinyartii ku dhimatay meeshaas ilaahay ha wada naxariisto waxaan aad iyo aad uga naxay wiil meesha aan isku barannay oo Fahad la dhaho mar walba wuxuu dhihi jiray hooyaday waa la ciiray waxaanoo dhib ah waxaan u soo maray si aan uga saaro dhibka xitaa lacagtii laga bixiyey magafaha qaaraan ayuu ahaa oo reerka aabbihii shilinkuma uusan sheegan walow aan dhallinyartii dhimatay ka wada naxay haddana Fahad wuxuu ahaa mid uurku taallo weyn igu reebay wixii dhici lahaa way dhaceen alxamdulillaah ilaahay ha u wada naxariisto dhammaantood wallaahi saaxiibayaal qisadani waa qiso aad iyo aad u xanuun badan waana qiso shakhsiyan i taabatay waxaana leeyahay
qof kasta oo damiir lahu waxa waaye ha u duceeyo dhalinyartaas inuu ilaahay u naxariisto wiilkaas ka badbadana nolosha uu u qurxiyo channelkana waxa waaye waa qiso iyo qalin muuqaalka la garay soo subscribe garay waxaad ka heli doontaa qisooyin waxa waaye wax ku ool ah wax badanna waxa waaye aad ka faa'iidi doontaan haddaba soo dhawaada saaxiibayaal